السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan muuqaalka filimku wuxuu ku bilowday dhowr muuqaal oo muujinaya shaqada gudaha macad sir ah oo loo yaqaan si fudud ururka macadku wuxuu tababaraa wiilasha laga bilaabo da'da ay aadka u yar yihiin say u noqdaan gacan gudhiglayaal halkani kama jirto timo qurxin maadaama qof walba uu leeyahay madax xiiran oo nadiif ah ardaydana waxaa lagu aqoonsadaa baakood oo madaxooda gadaashiisa lagu sawiray laga soo bilaabo yaraantooda wiilasha waxaa lagu tababaraa xirfadaha dagaalka hubka iyo rasaasta iyo qaabka edbinta daran dayga in laga baxsado ururka waxaa lagu mutaysanayaa dil muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa habeen roobaad London halkaas oo wakiilka Interpol Mike Whittier uu ku soo laabtay gurigiisa wax kasta waxay u muuqdaan kuwo caadi ah laakiin wuxuu isla markiiba ogaaday inay wax khaldan yihiin maadaama nalalka qolka fadhiga aysan shidmaynin si kastaba ha ahaatee ka hor intuusan bastoolad qabsan waxaa soo dhaweeyay wakiil 47 oo ah dilaaga ugu halista badan adduunka Mike wuxuu daba socday 47 saddexdii sano ee la soo dhaafay isagoo aan wax guul ah gaarin gacan ku dhiiglaha Dawson ayaa qorigiisii ku taagay Mike wuxuuna ugu hanjabay inuu fariisto wuxuu u xaqiijiyay inuusan qofna ku dhibaateyn doonin guriga maadaama uu doonayo inuu si fudud ula hadlo iyadoo labada nin ay wada sheekaysanayaan muuqaalku wuxuu u wareegayaa dalka ay colaaduhu aafeeyeen ee Niger 3 bilood ka hor maanta 47 ayaa si naxariis daro ah remote-ka bamka u geliyay dhuunta askari hore uga baxsaday xiradii qabqablayaasha 47 dabada dib ayuu ugu soo celinayaa oo askariga baxsaday waxaa la geeyay goobtii lagu ciqaabi lahaa ka hor intaysan qabqablayaashu bilaabin ciqaabta 47 ayaa taabtay remote-ka oo qof walba goobta ku qarxiyay intaas kadib kormeeraha Interpolka Mike ayaa yimid Niger isagoo daba socda raad raaca wakiilka 47 mar kale aad buu uga soo daahay maadaama aysan jirin raad cadayn ah Mike wuxuu u sheegay taliyaha guud ee ciidamada Niger in dhacdadani ay si fudud u ahayd mid ka mid ah boqolaal dil oo la mid ah kuwa adduunka oo dhan ka dhacay oo wakiilka 47 uu qayb ka ahaa dhanka kale 47 ayaa horeyba ugu sugnaa Ruushka isagoo isku diyaarinaya shaqadiisa xigta wuxuu u socdaa qolkiisa hoteelka halkaas oo uu dhigayo dabino oo uu hubinaya xarigii uu ku baxsan lahaa ee balakoonka isagoo hubinaya inuu xidhan yahay kadibna wuxuu gelayaa serverka uu u shaqeeyo halkaas oo cod dumar oo robot ah ay ugu hambaliyeysay shaqadii ugu dambeysay ee uu ka soo qabtay si kastaba ha ahaatee weerarkiisii xigay ee uu ku dili lahaa madaxweynaha hadda xilka haya ee Ruushka Mikhail Belikov ayaa dhowr maalmood dib loogu dhigayaa codsiga macaamiilka awgii kaasoo sidoo kale doonaya in dilka uu noqdo mid public ah 47 wuu ka shakisan yahay maadaama isbedelada lama filaanka ah ay ka soo horjeedaan bartakoolkiisa laakiin wuxuu iska indhatiray dareenkiisa shakiga oo aqbalay fayl ay ku jiraan macluumaadka Mikhail Belikov iyo walaalkiis Udry Belikov kadibna lagu soo diray kombiyuutarkiisa dhowr maalmood kadib Mikhail wuxuu yimid dibadbax balaaran saxaafaduna waxay isla markiiba ku hareereysatay isaga 47 wuxuu diiradda saaray bartilmaameedka oo madaxa ka calaamadeeyay ka hor intuusan si degdeg ah uga baxsan goobta kadib markuu shaqada dhameeyay wuxuu si degdeg ah u xirxirtay boorsooyinkiisa wuxuuna yimid saldhigga tareenka ee Petersburg suu uga baxsado Ruushka isla markiiba wuxuu helay fariin degdeg ah oo ka timid macaamiilkiisa sidaa darteed wuxuu dib ugu soo noqonayaa serverka waxaana lagu wargeliyay inuu jiro qof arkayay dilka oo ah haweeney dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Nika Bronina xirfadle run ah wuxuu aqbalayaa hawsha dilka bartilmaameedka maalintii xigtay Nika waxay baabuur ku sugaysaa barxadda weyn ee magaalada markaasoo uu 47 arkay wuxuu ku sigtay inuu toogto markay soo jeesato oo ay eegto isaga 47 wax yar ayuu ka labalabeynayaa markuu arkay dragon ku sawiran isha bidix hoosteeda isla markiiba gacan ku dhiigle kale oo ka tirsan isla ururka ayaa bilaabay toogashada 47 laakiin 47 ayaa ku guuleystay inuu ka baxsado goobta meel kale isbatoore Mike wuxuu yimid Ruushka isaga iyo gacantiisa midig Jenkins telefoon ahaan Mike ayaa lagu wargeliyay in Mikhail uu ka badbaaday isku dayga dilka iyadoo xabadu ay si dirqi ah u dhinac martay bartilmaameedkeedii warkan ayaa dhibaya kormeeraha maadaama uu hubo in ninka uu eriyanayo ee 47 uusan weligiis seegin bartilmaameedkiisa intaa waxaa dheer waxaa sidoo kale daaha laga qaaday in mas'uul ka tirsan hoteelka Grand ee Petersburg uu aqoonsaday wakiilka 47 markii la tusay sawir ay booliiska maxalliga ah ay ku guuleysteen inay qaadaan inkastoo Mike uu ka shakisan yahay sida gacan ku dhiiglaha adduunka ugu halista badan uu u ogolaaday in la sawiro haddana wuxuu isla markiiba u soo yaacay dhinaca hoteelka Grand dhanka kale qolkiisa hoteelka 47 ayaa ku wargeliyay shaqaalihiisa in gabadha Nika aysan arkin dilka uu geystay Said ayuu ula yaabay markuu ogaaday in Mikhail uu ka badbaaday xabadda inkastoo uu arkayay rasaasta oo madaxiisa ku dhacaysa aad ayuu uga naxay markuu arkay warka live-ka ah ee Mikhail oo reer galbeedka ku eedeynaya inay isku dayayaan inay dilaan 47 wuxuu isla markiiba ogaaday in waxaas oo dhami ay yihiin been abuur oo isaga ay u qorshaysay shabakad khiyaano ah oo faahfaahsan wuxuu dalbanayaa inuu ogaado qofka macaamiilka ah laakiin wax jawaab ah kama helin macaamiilka isagoo xanaaqsan ayuu ugu hanjabay in haddii ay isaga khiyaamaan uu dhulka ku dari doono Mike iyo Jenkins ayaa goobta yimid halkaasoo ay kula kulmeen kabtanka booliiska kaasoo rigiisa u diyaarinaya inay hoteelka weeraraan
Mike wuu ka biyo diiday, laakiin markaas Yuri oo ah sarkaal ka tirsan booliiska sirta ah ee Ruushka FSB ayaa soo dhex galay. Wuxuu u sheegay Mike inuu isagu mas'uul ka yahay howlgalka oo uu awood u leeyahay inuu wax ka qabto xaaladda. Muranka dhex maray Yuri iyo Mike kadib, kabtanka biliiska ayaa ku qasban inuu dhageysto amarada Yuri si uu u galo hoteelka oo uu aragti ugu toogto tuhmanaha. Koox ka kooban ciidamo gaar ah oo aad u hubeysan ayaa dabadeed kor u fuulaya jaranjarada. Isla markaas 47 waxaa soo wacay Diana, codka ka dambeeya serfarka macmiilka. Waxay u sheegtay in macmiilku yahay Mikhail laftiisa iyo in goobta uu ku sugan yahay la soo weeraray. Banaanka nimankii hubaysnaa ayaa u soo dhawaaday qolka 47 waxayna ku istaageen dabinadii uu dhigay albaabka agtiisa. Natiijo ahaan dabinkii bambada ee uu hore u dhigay albaabka ayaa daarmay oo saacadda qaraxa ayaa bilaabantay. 47 ayaa ordaya inta nimanku garaacayeen albaabka, taasoo keentay qarax weyn. 47 ayaa ka soo baxsaday qolka isagoo isticmaalaya xarigii uu ku diyaarsaday balakoonka, wuxuuna ku dhacay qol kale oo ay laba caruur ah ku ciyaarayaan video game. Kadib wuxuu laba bastooladood kala soo baxay qalabka barafka ee qolka fadhiga oo uu si degdeg ah u bilaabay inuu baxsado. Kadib markuu toogtay oo uu dilay laba ilaalo ah, ayuu jabsaday saqafka wiishka. Mike iyo Jenkins oo gudaha u soo yaacay qaraxa kadib ayaa arkay wiishka oo socda. Mike wuxuu kor u raacayaa jaranjarada si uu uga hortago, halka Jenkins uu gadaal ku sugayo si uu ugu soo sheego dabaqa uu ku istaago wiishka. Dhanka kale 47 wuxuu ku degay dusha sare ee wiishka, halkaasoo 6 booliis hubeysan ay ku jiraan. Wuxuu si arxan daro ah u toogtay dhammaantood ka hor intuusan wiishka u dirin dabaqa hoose. Jenkins wuxuu arkay wiishka oo ku soo socda oo uu la soo baxay bastooladiisa, laakiin waxaa soo dhaweeyay meydadka. Kadib wuxuu arkayaa albaabka dabaqa saddexaad oo furmaya, dabadeed wuxuu u sheegay Mike oo u soo yaacay. Ilbiriqsiyo kadib Mike wuxuu 47 ku qabtay dhamaadka howlka dabaqa saddexaad oo uu ku qabtay bastoolad, laakiin gabar ayaa soo gashay dhexdooda iyadoo siinaysa 47 fursad uu ku boodo oo uu ku quso barkada hoose, iyagoo aad uga carooday inay waayaan bartilmaameedkoodii ugu muhiimsanaa. Mike iyo Jenkins waxay ku noqdeen qolka 47 balse waxay arkayaan inuu burbursan yahay. Mike wuxuu ka ogaaday kabtanka booliiska inuu waayay 16 nin, wuxuuna dalbaday inuu kala wareego, taasoo uu kabtanku ogolaaday. Daqiiqado kadib sarkaalka FSB ka tirsan ee Yuri ayaa yimid. Mike-na wuxuu u sheegay inuu og yahay in Mikhail la dilay iyo in qof uu isku dayayo inuu qariyo shirqool weyn. Meel kale 47 wuxuu awood u yeeshay inuu helo suud cusub ka hor intaanu iman hodheel ay Nika degan tahay. Isagoo sita xoogaa ubaxyo ah ayuu garaacay gambaleelka albaabka, isagoo u sheegay in Mikhail Belikov uu u soo diray ubaxa. Laakiin markay albaabku furto ayuu ku qabtay bastoolad oo u sheegay inay soo qaadato jaakad. Labaduba waxay ka soo baxayaan hoteelka oo uu ku riday boostakaanada, kadibna wuxuu u kaxaynayaa guri ammaan ah. 47 wuxuu keenay dhismo qadiimi ah oo ku yaala duleedka magaalada, wuxuuna bilaabay inuu su'aalo weydiiyo. Nika weligeed may arkin 47 ka hor shalay wadooyinka markay sugaysay inay la kulanto gacliyaheeda Mikhail. 47 wuxuu sidoo kale dalbaday inuu ogaado sida Mikhail uu weli u nool yahay, laakiin waxba kama oga iyada. 47 ayaa si cabsi leh ula soo baxay bastooladiisa, isla markiiba waxay sharaxday in Mikhail laga yaabo inuu booskiisa u isticmaalay qof kale. Isla markii uu gacan ku dhigluhu ku dhawaado inuu toogto Nika, ayuu arkayaa taatuuga wejigeeda oo dib u xusuusinaya sida uu ku yeeshay taatoo barcode u gaar ah. sidaa darteed wuxuu go'aansanayaa inuusan toogan iyada oo uu wax ka weydiinayaa Mikhail walaalkii Udri. Wuxuu ogaaday in Udri uu maamulo koontada tahriibinta iyo ka ganacsiga qoryaha. su'aalaha kadib 47 wuxuu rabaa Nika inay raacdo isaga, laakiin way diiday soo jeedintiisa. Si kastaba ha ahaatee wuxuu ku guuleystay inuu ku qanciyo isagoo shaaca ka qaaday in Mikhail uu doonayo labadoodaba inay dhintaan maadaama loo soo dirsaday inuu dilo Nika sidoo kale. Kadib 47 wuxuu go'aansaday inuu dhameeyo hawshiisa dilka Mikhail oo uu kashifo shirqoolka. Dhanka kale Mike wuxuu la kulmay kabtanka booliiska kaasoo sharxay inay xireen magaalada oo dhan iyadoo tareenada kaliya ay u sii safri doonaan Ruushka, laakiin Mike wuxuu u malaynayaa inay taasi tahay waxa 47 uu qorsheynayo inuu sameeyo. Dhanka kale 47 iyo Nika waxay ku sugan yihiin saldhigga tareenada markaasoo uu khatar dareemay kadibna diray. Gadaashiisa waxaa fadhiya nin kale oo gacan ku dhigla ah. Waa nin ka weyn oo madaxa xiiran oo madaxa gadaashiisa ku leh sawir barcode ah. Meel xoogaa u jirta ayaa waxaa jooga Jenkins iyo Mike, kuwaasoo huba in 47 uu joogo saldhigga tareenka. Dhanka kale 47 si ula kac ah ayuu ugu ogolaanayaa hitmanka kale inuu arko oo uu soo raaco isaga. Mike wuxuu arkay ninkii weynaa oo uu ku amray Jenkins inuu raaco, laakiin wuxuu arkay Yuri iyo wakiiladiisa iyagoo raadinaya 47. Hitmanka weyn ayaa yimid isagoo raadinaya 47, wuxuuna la soo baxay bastooladiisa isagoo raadinaya ninka madaxa xiiran sidiisoo kale. Wuu u soo dhawaaday laakiin 47 ayaa gaadaya oo si fudud uga adkaaday isagoo ku majaajiloonaya inuu da'da gabowga gaaray. 47 wuxuu doonayaa inuu ogaado sababta isaga loo ugaarsanayo, laakiin wakiilku wuu diiday inuu hadlo. Markaa 47 ayaa toogtay ka hor intuusan qof kale arkin oo
meesha ka dhowaa. 47 wuxuu ku dhammaanayaa tareen bannaan, waxaana si lama filaan ah uga hor yimid 3 wakiil oo isaga la mid ah. waxaa jirta xiisad kacsanaan ah. 47na wuxuu soo jeedinayaa inay si sharaf leh u dhintaan, sidaa darteed dhammaantood waxay hoos u dhigayaan qoryahooda oo ay la soo baxayaan 2 mindiyood. si kastaba ha ahaatee markuu dagaalku bilowday waxaa muuqata in saddexdu ay hore u sii qorsheeyeen inay 47 weerar ku qaadaan, balse xirfadiisa ma ahan mid laga adkaan karo. wuxuu si fudud oo naxariis daro ah u dilay 3 ka mid ah raggaas, isagoo kii ugu dambeeyey ka saaray tareenka. wuu garaacay ninkii intuusan suunkiisa ku ceejin. 47 dib ayuu u noqonayaa suu u helo wakiilkii hore, kaasoo weli nool. wuxuu u sheegay 47 in arrimuhu ay hadda bilaabanayaan oo ay ka sii dari doonaan. kadib markuu dilay hitmankii ka weynaa, 47 wuxuu arkay Nika oo ku dhuumanaysa meel u dhow maadaama ay isaga u timid. isla markaas Jenkins ayaa soo galay aaga isagoo bastooladiisa la soo baxay, laakiin 47 ayaa ku guuleystay inuu ku qabto bastooladiisa intuu Mike soo galayay. si degdeg ah oo ficil leh, 47 ayaa Mike ka toogtay meel u dhow feeraha, kadibna wuxuu suuxinayaa Jenkins. Nika iyo 47 kadib waxay ka baxeen aaga iyadoo ciidamo dheeri ah ay bilaabeen inay goobta soo gaaraan. meel kale, kadib markuu ugu hanjabay isbatoore Mike inuu dalka ka baxo, Yuri wuxuu ku soo noqday xafiiskiisa oo uu telefoon ammaan ah kula hadlay Mikhail. wuxuu ku amray Yuri inuu raadiyo oo uu dilo 47 iyo gabadha, isagoo aan ka warqabin Interpol ayaa khadka soo gashay. Mike hadda wuxuu dhageysanayaa hadalka. si kastaba ha ahaatee, daqiiqado kadib FSB ayaa ka daba tagtay gaarigoodii, waxayna ku qabteen qoryo, iyagoo sheegay inay haystaan amar ah in labada qof loo gelbiyo garoonka. dhanka kale, 47 wuxuu diyaariyey kulan u dhexeeya Nika iyo xiriiriyaha CIA Sarkaal Smith, iyadoo 47 uu qoriga toogashada la fadhiyo saqafka u dhow. Smith wuxuu telefoon ugu sheegay in 47 uu dhab ahaantii dilay Mikhailka dhabta ah, laakiin madaxda Ruushka ayaa markaa ku bedelay qof kale si ay u xakameeyaan mustaqbalka siyaasadeed ee qaranka. hadda 47 ayaa loo tuuray Yeyda. 47 wuxuu soo bandhigayaa in CIA uu u dilo Mikhail walaalkii Udri si faraha looga qaado oo aan loo dilin. Smith wuxuu u sheegay in Udri uu qorsheeyay kulan uu la yeelanayo ninka ganacsada daroogada oo lagu magacaabo Bryce, kaasoo aan weligii la kulmin. intaas kadib, 47 iyo Nika waxay u safreen Istanbul si ay u dilaan Udri. wuxuu u kaxaynayaa shopping si ay u soo iibsato dhar cusub, kadibna wuxuu soo ag istaagayaa maqaaxi uu Bryce inta badan wax ka cuno. waxay arkayaan in maqaayadda uu ku qoran yahay 8 fiidnimo. 47 si qarsoodi ah ayuu u samaynayaa cabitaanka Bryce oo u celinayaa. waqti aan fogeyn, Bryce wuxuu ku dhibtoon doonaa inuu neefsado kadib markuu cabo cabitaanka. raggiisii ayaa degdeg u geeyey qolka musqusha, laakiin ma oga in 47 uu daba socdo iyaga. musqusha dhexdeeda, 47 ayaa si dhaqso ah u baabi'iyey ilaalada oo irbad ku duray Bryce, wuxuuna dilay raggii soo haray. habeenka xiga, 47 ayaa iska dhigaya Bryce oo aadaya kalaab, halkaasoo Udri uu inta badan joogo. Udri oo sarkhaansan ayaa soo dhoweeyey oo isu diyaariyey inuu heshiis la galo, laakiin wuxuu markiiba ogaaday in ninka hortiisa jooga uu yahay been abuur. hase yeeshee, Udri wuu iska indhatiray oo tusay 47 qorigiisa suu u cabsi geliyo. si lama filaan ah, 47 ayaa tuuray boorsadiisii, taasoo kicisay qarax yar. qalalaasihii xigay, wuxuu qof walba ku dilay qoriga mashiingaanka. ugu dambayntiina Udri laftiisa ayuu dilay. intaas kadib, 47 ayaa Yuri ku qaaday weerar gaadmo ah xafiiskiisa. Yuri ayaa soo toosay isagoo ku xiran saxanka qubayska oo ay ka buuxaan biyo iyo raadiyo gacantiisa ku xiran. 47 ayaa uga digay inuu amro toogashada Mikhail 8 saac iyo bar galabnimo, haddii kale koronto dhaliyaha ayaa koronto ku dili doona. aaska Udri, Mikhailka been abuurka ah ayaa soo muuqday iyadoo ammaankiisa la ilaalinayo suu u jeediyo khudbadiisa. wuxuu kor u fuulayaa masraxa suu khudbadda uga soo jeediyo muraayadda aanay xabaddu karin. Yuriga quusta ah ayaa haysta 1 daqiiqo oo uu ku gaaro go'aankiisa markay saacaddu tirada bilowdo. isagoo aan haysan wado kale oo u hadhay ayuu ku amray mid ka mid ah dableyda ammaanka ee aaska joogay inuu toogto Mikhail. taa beddelkeeda, shiishyahanku 3 jeer ayuu toogtay isagoo jebiyey muraayadda, laakiin Mikhail waxaa badbaadiyey raggiisa oo loo kaxeeyey meel ammaan ah. isla markaas, 47 oo gashan dharka askariga ayaa gaadmo ku weeraray oo ku laayay dhammaan raggiisii oo rasaas ooda uga qaaday oo wada laayay. dhanka kale, wakiilada KBG waxay tuurayaan gaaska sunta ah si ay u kala diraan ka soo qaybgalayaasha aaska oo ay u xiraan kaniisadda oo dhan, iyagoo u malaynaya in 47 uu ku xayiran yahay gudaha. 47 ayaa Mikhail qabtay oo qol kale u jiiday, laakiin haddana gacan ku-dhiigle kale ayaa waran ku weeraray. way dagaalamayaan iyadoo 47 uu si tartiib ah u garaacay, kadibna si naxariis daro ah u dilay. banaanka kaniisadda, kormeere Mike ayaa yimid oo ogaaday in 47 uu ku jiro manaaradda koonfurta galbeed. wuxuu qiyaasay in gacan ku-dhigluhu uu qorshaynayo inuu ka baxsado barkada u dhow kaniisadda oo uu ku amray raggiisa inay ku soo ururaan hareeraheeda. saraakiisha KGB ayaa maqlay Mike, waxayna waceen helikobtarka dagaalka si ay u weeraraan manaaradda koonfurta galbeed. gudaha, 47 ayaa kursi ku xidhaya khiyaanoolaha, wuxuuna dalbanayaa inuu ogaado qofka dhabta ah ee uu yahay, laakiin ninku wuxuu u soo bandhigay 47 inuu ka caawiyo fursad uu ku noolaado nolol caadi ah. arxanlaawaha
AK-47 ayaa diiday oo toogtay. Si lama filaan ah waxaa soo muuqatay helikobtarka KGB oo burbursay dhammaan qolka iyo meydka Mikhail, kadibna way tegaysaa. 47 ayaa ka badbaaday weerarka oo keligii fadhiistay iyadoo Mike iyo wakiiladiisa Interpol ay ku yaaceen qolka oo ay xireen. Isla markiiba waxay saareen gaari jiib ah si ay ugu galbiyaan garoonka diyaaradaha, balse waxaa markiiba dhexda u galay baabuur madow oo ay hareereeyeen saraakiil CIA-da ka tirsan. Sarkaal Smith ayaa soo baxay isagoo u sheegaya wakiilada Interpol inay istaagaan. Wuxuu ku andacoonayaa in Mike iyo kooxdiisu ay ku tuhunsan yihiin falal argagixiso. Mike oo wareersan ayaa ku wargeliyey inay sidaan gacan ku dhiigle dambiile ah si maxkamadda loo soo saaro. Laakiin isla markuu Mike u jeestay jiibkiisii, wuxuu ogaaday in wakiilka 47 uu ku guuleystay inuu si dhuumasho ah u baxsado. Smith ayaa markaa raaligelin ka bixiyey isku dhexyaaca, kadibna wuxuu la tegay yaaragiisa. Dhowr maalmood kadib gudaha Ruushka, Nika waxay heshay warqad hadiyad ahaan ka timid 47. Wuxuu ka daawanayaa meel sare oo dhismo ah oo gacan ku dhiigle dhintay ayaa hoos yaala cagihiisa. Muuqaalkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena kommentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.